qofkii rabayo aku qadime nadifa qarayo tusoo qabe nadifa qarayo tusoo qabe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي قالي سو دواده برنامجك لايك تشيرك سبسكرايبك ولا ليالو برنامجيدا اي شير غريا اي سبسكرايب اي سارة اد بان idinku mahad celinaya dadkeena maalmahan ma sha Allah aad iyo aad baan idinku mahad celinaya waxaan sii codsanayaa inaad barnaamijka ii faafisaan insha Allah taala waxa weeye wixii wanaagsan iyo wixii wacyi gelina iyo wixii maaragtay isu soo keen dhaweynaya inta ugu imaanaysiin walaashii nadiif qaran iyo jikadeeda wax walba hays soo dhawaada barnaamijka ii share gareeya like-ta ii saar hadaa hore ila joogtay hadaad cusub tahayna subscribe-ka iyo gambareelkood furato ood ka mid noqoto asxaabtayda qaaliga barnaamijku live buu ku baxaa inta badan ka qayb qaado lambar buu leeyahay soo wac igala qayb qaado comment waa ii muhiim waa ii dhiirigelin like-ta waa ii faafinaysaa meelo badan iyo dad kale oo inay aqoon baa sii arkayo igu soo biiraya أجرنا واتكهليسا وحن وماركت الدم بكاغي يمادو ملا كل ميسد إن شاء الله تعالى إلهي إذن كيس انتا سوا انتا إيميش حيسين تيدي سودو هذا ولا ليك قاليغا وأكتينو حيسين تلعقبة لغو بحيا مركا أنا وأنا إس حيسين آيه وحيسين آيه إسكعد سنايا وإذنك وحان لها الله وإذنك وان رجينا يا عدسي نافولين دونتان ولايك تأيو سبسكرايب كبا إيقو عاوين دونتان إيداو شدبا هل كان واحد أركتين sawirkaas aragtaan ambulance iyo dad meel taagan meeshan waa Ohio waa hadda right now waaye aan barnaamijkan in la wadaagayo waxa dhacday gabar baa ku dhacday godkaas hadda aad u jeedaan ee bahalada la gelinayo ayaa hooyo Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed ku dhacday gabadha lama oga inay dhimatay inay nooshahay in ma dhihi karo sidaas waaye waa lagu hawli jiraa dabdamisyadii muxuu ahaa ciidankii shacab badan way daawanayaan oo ila soo wadaagay hadda aniga dadka ila soo wadaaga meeshay taagan yihiin aniga walaalayaal barnaamijka dadka igu xiran ee qiimaha badan ee wanaaga jecel baa ila soo wadaaga wixii muhiim ah oo u baahan maaragtay ummadda in lala wadaago siiba waxa wacyigelinta wixii markaa dhacay oo maaragtay u baahan in laga hadlo dadkaasa ila soo wadaaga aniguna markaasa idinka in la sii wadaaga aadna waan ugu mahad celinaya dadka qiimaha badan ee igu xiran ee wanaaga iyo wacyigelinta iyo wixii wanaagsanba ciyowba ila soo wadaagaya meel kasta jooga dalka ha joogaan dibadda meel kastay ka joogaan Africa meel kastay ka joogaan waa ila soo wadaaga wiilal iyo gabdhaba waxaan leeyahay thank you so much hadda dadka jooga meesha aan isla hadalay ee barnaamijkan ii soo gudbiyay waxa weeye waa Ohio meeshu gabar baa meel goda ku dhacday Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ka soo badbaadiyo waana lagu hawl jiraa kolley wixii ka soo kordha iyo xaaladda kolba sida ay noqoto iyo gabadha hadii nolol lagu soo saaray hadii geeri lagu soo saaro dadkii ila soo wadaaga way joogaan insha Allah ta'ala way inala soo wadaagi doonaan aniguna markaas aan in la soo wadaagaya dadka igu xiran ee aan macnaha ama newsyada ama meelaha kaleeto oo wararka laga helo aan ku xirayn aan la wadaagaya kuwii kale oo arkana waxa way iyaguna way arkeenba marka walaalayaal ilaahay aynu u barino gabadhaas meesha ku dhacday in ilaahay si tartiib uga soo saaro nafteeda badbaadiyo kolley god bay ku dhacday god qof ku dhacay de naxdinta iyo meesha ay ku siibatay iyo waxa ay tahay iyo meesha intay dherer la eg tahay iyo bay ku eg tahay ma ogtahay bay ku xiran tahay maaragtay qofku inuu badbaado haddii godku dheer yahay ama godka bahala ku jiraan ama godka maaragtay meel dhagxaan uu leeyahay qofku markuu dhaco waxa weeye riskigeeda leedahay dib iyo ku jiraan kaba daran de qof dumar oo iyadana dumarkuna uu iska mariyo badan yahayo waxa laga yaabaa maradu inay meel dhexe ku qabsato waxa laga yaabaa inay af u dhacdo ilaahayse waxaan ka baryaynaa inuu ilaah baa nafta gooya gunta god kasta iyo geed kastana ilaahay baa wax ku badbaadiya ilaahay calool hooyo inta na geliyo biyo naga abuuro candhuufo naga dhigo cad naga dhigo buu haddana intuu ina abuuro ina dhammaystiro buu halkaa inagu hayaa oo hadhow inagoo nabad qabna oo qaylinayna oo qaaqle ka soo baxnaa marka ilaahay awalba ina abuuray baa haddana awoodiisu gacanta ku jirtaa isagaana ka rajaynaynaa gabadha Soomaaliyeed inuu badbaadiyo oo waa arrin naxdin leh ilaahay maarta qoyskeedii iyo ehelkeedii iyo hadday caruur leedahay hooyo tahay iyo hadday xaas tahayba ilaahay dadka Soomaaliyeed
iyo ehelkeedaba qalbiga u qaboojiyo annagoo aan garanayn baa hadda la kurboonayna because waa hooyo Soomaaliyeed waa qof muslima ilaahay waxaan ka rajaynayaa iyadoo nabad qabta oo caafimaad qabta oo khayr qabta inuu ilaahay kasoo badbaadiyo oo kasoo saaro meeshaas laakiin wallahi waxaa la yiri god xun bay ku dhacday kolley ilaa lasoo saarana dee waxba ma dhihi karo meesha waa aragtaan meel isiya inay ahayn waxaad ka garanaysaa sida loola xarbinayo hadda dadkaa la diyaarinayo ninkaas wax lagu xirxiraayo dadkaa dabdamiska ku shaqale godadka gala wiilkaa hadda birtu ugu jirto madaxa iyo koox baa la gelin rabaa sida la ii sheegay anigu ma joogo meesha ilma adeerayaal laakiin dad taagan baa ila wadaagaya oo saacada ila socodsiinaya marka dadka waxay ii sheegayaan in hadda lagu hawl jiro kolley waa aragtiin meel easy hadday tahay markiiba inta lagu dhaco yaa lasoo bixin lahaa laakiin waa aragtiin meel u baahan waaye in qofka gelaya oxygen loo xiro in qofka gelaya qalab oo hadhow lagu soo celin karo oo qofku aan godka ku fakanin loo xiro halkaasaad ka garanaysaa marka in maaragtay ay jirto meesha khatar dheer oo ay leedahay inay jirto waad garanaysaa marka kasoo qaad gabadh ku dhacday meeshaas oo halkaa ku siibatay ilaahay baa xalkeeda og laakiin waxaan rajaynaynaa meel jabta iyo maaragtay jug gaarta iyo waxaas waa laga bogsadaya iyadoo nafteeda ku jirto oo nool inuu ilaahay kasoo saaro idinkana waxaan iniila wadaagaya waa barnaamijyada wacyigelinta ah waa barnaamijyada bulshadeena ka dhex dhaca markay ku dhacaan loo baahan yahay in la wadaago inaad u ducaysaan ducadiina inuu ilaahayba ku badbaadiyaa la arkaa ilaahay xay baaqiga aha waxna dila waxna nooleeyana waan ka rajaynaynaa iyadoo nabad qabto ka sheekaysa sidii wax ugu dhaceen inuu alla kasoo saaro oo balaayo kastoo halkaa ku jirta godkaa ku jirta bahal hadday tahay iyo hadday masiibo kale tahay iyo jug ku dhacday hadday tahay inuu ilaahay ka badbaadiyo ilaahay baan u baryaynaa gabadhaas walaasheena arrintaasaan rabay inaan in la wadaago waanshuna waa Ohio gabar Soomaaliyeed baana halkaa ku jirta marka walaalayaal ducada aynu u badino si gabadha walaasheena ducada ugu badino ummaduna ugu soo ducayso arrintuna ay meel fiican inoogu gaarto qof walbiba ugu duceeyo arkana meesha waxa ka dhacay inaad sheer garaysa waa idinka rajaynaya because meeshaan aynu soconno ilaahay baa ina wata ilaahay baa meesha xunna kaa ilaaliya meesha aad ku sidbanaysana isagaa og marka waa loo qoray inay meesha ku dhacdo laakiin haddana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ka dhigo meelay ka badbaado oo dhibkeeda uu kasoo ay ka baxdo inuu ilaahay uga dhigo baan ilaahay ka baryaynaa idinkana waxaan ka baryayaa inaan barnaamijka faafisaan ducadu waa muhiim si loogu duceeyo gabadha walaasheena ilaahayna usoo badbaadiyo wallaahi bilaahi waa arrin khatara godka aad buu u dheeryahay waa aragtaan nimanka sida xargaha loo xirxirayo sida loo diyaarinayo sida maaragta la rabo in ambalaasti waa joogtaa booliiski waa joogaa dhakhaatiirtii waa joogtaa sababtoo markii lasoo saaro si degdega in qof wax loogu qabto ayaa loo baahan yahay marka waxaasoo dhan way joogaan marka walaalahayga qaaliga waxa weeye gabadhaas aynu u ducayno walaalayaalo aynu u ducayno ilaahay waxaan ugu baryayaa inuu soo badbaadiyo ilaahow adaa shalana abuurtay maantana aday magantaada tahay ilaahow soo badbaadi haddii teedii wax ka dhiman tahay haddii loogu talagalay dee halkaas kolley inkastoo la yiri naftu qofku isagaa socda ee qabrigu ma socdo meeshaad ku dhimanayso meesha naftu kaaga baxayso meesha lagu duugayo haddii ay ahayd meesha ay nafteedu ahayd inay ku baxdana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadiisa ku irsaaqo dembigeeda dhaafo wixii dunuubahayo ka dhacay uu ugu dembi dhaafo imtixaankaa yar iyo silicaas ay u dhimato waa hadday dhimato hadday nooshahana ilaahay inuu badbaadiyo ka dhigo meel ay kasoo badbaado ka dhigo mid ku cimro qaadata in adduunku adoo xaragoonaysa naftu kaa bixi karto adoo xaragoonaysa aad khatar geli karto oo wax kasta oo dulmi ah ama dhiba oo hadday ka shaqaynaysa ama ay ku jirta ay kaga cimro qaadato inuu oo cimro qaadasho u noqoto inuu alla uga dhigaa ilaahay uga baryaynaa annaga nafteenna kuwa ku cimro qaata oo ogaada adigoo iskala wada ama adigoo maaragta umad xamanaysa ama adoo shar kasoo shaqaynaysay oo isle alla ma dhimanaysa ama waa caafimaad qabtaa in qadartaanoo kale kugu dhici karto inaynu ku cimro qaadana inagana cashar bay inoo tahay because nabiga calayhi salaatu salaam markii wax dhacaan masiiba markay dhacdo ooy jiray cimro qaadashona uu arki jiray asxaabtuna sidaasay ahayd inagu laakiin wixii dhaca cimro qaadasho uma aragno waxa weeye kuwii cimro qaata danta garta ilaahay xasuusta wax kastoo yimaada in xigmadi ka damayso garta ilaahay haynaga dhigo gabadhaana allah soo badbaadiyo ilaahayna waxaan inii ka baryayaa
idnagoo dhan inuu ina badbaadiyo dembigeena iyo dembi waalidkeena inuu dhaafo ceebteena iyo ceeb islaan ilaahay inuu asturo dalkeeni khatar baa haysee khatarta inuu ilaahay ka badbaadiyo cadowga inagu soo qulqulayo meel kastay yihiin inuu ilaahay naga qabto madaxdeena inuu ilaahay xaqa tuso oo ilaahay maaragtay uu tuso inay ummad dhan matalaan qabri sugaayo qiyaama sugaayo xisaabi sugayso iyagana allaha ku sugan leeyahay intaasaan rabaa inaan la wadaago asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu